magaalada Balecabane ee gobolka Hawd ayaa laga dhisay taalo lagu xusayo mujaahid Xasan Salebaan Weyne oo ahaa mujaahidiintii ugu horeeyay ee ku geeriyooday halgankii dheeraa ee lagu xoreynayay Soomaaliland waxaana ka hadlay mujaahidiin siyaasiyiin xildhibaano wasiiro hore iyo ehelada marxuum mujaahid Xasan Salebaan Weyne oo ku dheeraaday taariikhda mujaahid Xasan Salebaan Weyne oo ku lahaa halgankii dib u xoreynta dalka ugu horeyna waxa ka hadlay mujaahidiin ay halgan dheer u soo mareen dib u xoreyntii dalka wasiiro ka tirsanaa xukuumadihii xukunka dalka u kala dambeeyay waxa la yiraahdaa Maxamed Salebaan Xasan Salebaan walaalkiis baana Xasan Salebaan waa shahiidi maalintii naloo soo sheegay jidaanu joognay hooyadayo way mashxaraday ilaahay naxariista jannaasi hooyadayo way mashxaraday waxay tiri qof dumar oo ida dooni maayo oo hinna halkan kaba rabo qofkii mashxaradayuunba ii soo galayba ku tiri waxay tiri wuxuu aaminsan yahay oo aan aaminsanahay oo tolkii aaminsan yahay buu dhintay xasan waa shahiidi laakiin waxa ciil hayaa iyo cadho raggeena maanta farmaajo hor taagan yahay ee uu marba leeyahay meel baan ka soo xidhay ee uu leeyahay marba waxbaan u diiday ee uu marba leeyahay anaa xukuma ninka fadhiidka ah ee dawladda gacan ku rimiska ah yiraahdo madax baan u ahay ee ciidamada shisheeyo ilaaliyaan xasan maanta ciil ma qaba ee jannadii buu tagay insha Allah taala operationkii aan maqasheen ee la jiray gaani baa lagu dilayaa operation 013 baa loo jiray aniga xasan baa bixin dambarka isagaa sameeyay isagaa dhamada kaxeeyay qoladii galeysay hargeysa geeyay ka soo saaray Balecabanahan uu ku dhimanayaa waa markii saddexaad sanadka meel alla meeshu dagaal ka dhacayo xasawa taagay hadii mingistal la shiraayo xasawa taagay hadii la shiraayo minitiska isaga waxa uu dhaqaadi jiray aniga maalinta raggu soo gurmaday baan ahay hawsha uu yimi aniga Axmed Mire iyo Maxamed Cilmi Galaan ayaa fulinaynay kuma qorayn wadadaas maray markii leeyahay marka xaaladdu ku culus tahay ayuu gurmad noogu yimi dabeedna aniga Axmed Mire waxaanu qabanay allay baday habeenka halkan waxa yimi Maxamed Cilmi Galaan iyo Xasan Salebaan iyo Yusufeen ayaa dood budday ilaahay haw naxariisto ya ani Axmed Mire iyo ayaa saraakiisha maalinta joogtay markaa joognay iyo Maxamed Cilmi Galaan oo isna danaafo weyn oo waxa ku dhacay ogtihiin iyo biraha ku jira waxa la ilaahay haw naxariisto wixii ka tagay weynaga xarsanayna meesha aynu maanta taaganahay looma soo dhawaan jirin wallahi bilayna ciidima jirin يا كلمة نكو هذا شيء دومش حاجات كسمر تبى لو يسولون شيء هالك ما تنوى تعيلا أرجيسا أنا قاعد جالس كده أحمر إنه كل بوحنا هين markii qolada meena baadku heshay lafiis dadkii ama xukuumadii markaa jirtay madaxweyne Daahir Riyaale aanu wasiirka ahayn u soo gurmanay oo ku aasnay halkan waxa maanta ku aasan yahay de taariikhda Xasan Salebaan cid waa laga hadlo si fiican baa looga sheekeeyay wax badan kaga noqon maayo waxaan leeyahay naxariis jannaha ka waraabiyo dawladda xamar iyo farmaajana kulliba waxaan u maleynayaa oo aan hubaa inay u tahay 10 isaga iyo raggii kale u shahiiday maanta raggii ay dhaleennay inay nool yihiin waxay ka tageen nool yihiin dadkii xoreeyeen iyo dalkii xoreeyeen maanta joogo dee abaalkoodina hal la xusuusnaado waxa weeyaan raggaa aynu maanta dee nabadaynu ku joogno iyo xorriyadda iyo dalkeennaba keenay weeye dhidibada u aasay waxay la tahay siyaad barri iyo afweynay ka adkaadeenoo maanta dee waxba in farmaajo la dhinac dhigaba maaha raggii raggaa ka adkaaday dawladdii soddon jirka ahayd ee Afrika ugu xoogga weynayd ka adkaaday maanta farmaajo macna uma leh laakiin inta nool baa xilkaas saaran yahay dad 100 sano wax soo tabcanayo soo dhisayay ayaa maalmo kaliya lagu dudumiyay waxaana xoreeyay in rag baan xoreeyay raggiina xoreeyay wax nool iyo waxay dhaleen ayaa buuxa waxaan leeyahay farmaajo waxaan leeyahay adeerka intii yarada sanan baa ka cayrisay maantoonu dawlad nahayna biyo ku ka marmayno
waxaan ku leeyahay halkaaga ayaa lagugu imanayaa berigii hore waxa laga biqi jiray anigu waxaan leeyahay dheeliyo ciyaariyo dhayalkumaba taagnide dhiigeesi shubay iyo dhaxehanad la dooxiyo geeri loo dhammaayo shacabku uu dhadhamiyaad dhidibkoodii tahaye dhulku qaaru diido dhirta ilaahay naxariis janna siiyo waxa weeyaan jannadii ayuu ku jiraa janna firdowsa halkii shahiidiinta loogu talagalay ayuu ku jiraa halkaynu joogno meel ka wanaagsan ayuu joogaa loo calaacali maayo